aqoonsiga dawladnimo dariiqyada loo maraa isdiiwaangelintu aqoonsiga dawladnimo dariiqyada loo maraa dalkiisa muwaadinka leh waxay damiinata حقيسة دستورية حقيسة دستورية دالكيسة مواطنك له وحيو دمينتا حقيسة دستورية هاي حقيسة دستورية رارها دورشدا waxay dabartaa xidhaa dilaalkiya tuuga jecel inuu wax istaba marshaa daraaraha doorashada waxay dabartaa xidhaa dilaalkiya tuuga jecel inuu wax istaba marshaa dadkaygow dhammaan وانقلي باجرتي وبها ودارينا دارها قرك يا برشدا القاد كذا قايب قالوا وانا قادايعنا لكي قودا من دمان وانقلي باجرتي وبها ودارينا دارها قرك يا برشدا sidaa u jeedaan maanta waxaa la kala diray diiwaangelintii gobolka Sanaag marka laga reebo degmada Ceelafooyin iyo Garadag dhammaan waa ka gaadiidkii iyo shaqaalihii la kala dirayo si rasmi ah insha Allah Ilaahay idankii waxay uga bilaabaysaa bari 6 subaxnimo goob walba marka waxaan leenahay dadka reer Sanaag ee aan diiwaangelintu hore u gaadhin diiwaangelinta ha u diyaar garoobaan waxaana diyaar garoobayaa waxa weeye dadkii qaan gaadhay diiwaangelintii hore kadib iyo dadka markii hore 2 jeer galay ee uu kaadhu ka gubtay ama wax ka badan iyo dadkii maqnaa ee ka maqnaa inay diiwaangelinta ka qayb qaataan laakiin waxaanu la socodsiinaynaa oo runtii halkan uga sheegaynaa ama digniin aanu leenahay uga digaynaa dadkii intay diiwaangelinta galeen aan kaadhadhkoodii qaadanin iyo dadkii diiwaangelintii hore galay inaanay isku dayin inay mar labaad isdiiwaangeliyaan sababta waxa weeye uu ka gubanayaa marka waxaanu leenahay qofkii mar hore ka qayb qaatay ee mar kaliya galay diiwaangelinta haddii uu kaadh qaatay haddaanu qaadanba ayaanu diiwaangelintan isku gelin oo kaadhkiisa iska gubin kaadhka dadkii aan qaadan waxaa komishanka u ballan qaadayaa in loo soo diro goobahoodii oo ay goobahoodii ugu tagaan waqtiga kaadh qaybintu socoto ay kaadhkooda ka qaataan marka dee waxaanu leenahay aad iyo aad ha loogu diyaar garoobo diiwaangelinta aad baanu runtii ugu faraxsannahay inay hawshii si wanaagsan oo ismuuda noogu socoto